xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen culamaa udiin hogaamiyaal waxgarad odayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta waxa ay ka dhacday jaamacadda mustaqbal ee magaalada Gaarisa. Ujeedka xafladan ayaa waxa ay ahayd sidii loo sii sagootin lahaa arday 4 sano ee la soo dhaafay baranayay qaybaha kala duwan ee culuumta islaamka. Qaar ka mid ah ardaydii jaamacadda ka qalin jabiyay ayaa dareenkooda la wadaagay. bismillaah magacayga waa Raxmaan Axmed Mursal. waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda mustaqbal. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta heerka soo gaaro. waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallimiinteeda, waalidiinteeda, zawjkayga dhammaan intii soo caawisay. magacayga maxaa la yiraahdaa Mukhtaar Maxamuud Guure. waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalin jabiyay jaamacadda mustaqbal. waxaan soo 4 sano. aad baan ugu faraxsanahay aniga oo soo gaaray wixii aan ku dhimanayay ama hadafkeygii ama wixii aan rabay inaan gaaro. ma haddaas waxaan u jeedinaa Allah subhanahu wa ta'ala anoo caafimaad qaba oo maartay aan xanuunsaneen inta 4 sano ii samaxay fursadan isiyay kadibna macallimiintii ama dadka ducaada ahaa oo intaas maartay nagu dhiriirnay maan aad ugu mahadinayaa. waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacatul mustaqbal al-islaamiya. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta marxaladan soo gaaray oo wax badan ku soo daalay aan maanta ka takharujay. waxaan u mahadcelinayaa waalidkay oo i soo gaarsiiyay meeshan. ardada kale ee dhammaan isla qalin jabinay waan u tahniyadinayaa. waxaan leeyahay shukran lakum wa uhaniukum wa marhaban bikum. hogaamiyaal isugu jira wasiiro iyo xildhibaanada hoose ee dowlad goboleedka Gaarisa ayaa waxa ay ka hadleen madasha iyagoona sheegay in ay dhankooda ka xoojin doonaan barashada culuumta islaamka. waxaa la yidhahaa Cabdi Cumar Faarax. waxaan ka soo qayb galay qalin jabinta maanta ee lagu maamuusayay jaamacadda mustaqbal. waxaan u xil saarnahay wasaaradda jidasha iyo isgaarsiinta wixii loo yaqaan af Ingiriis roads and transport. meeshan waxaan matalayaa dowladda county government anigoo sii matalayo executive-ka ayaa nagu soo dhaweeyeen inaan bal u imaano la wadaagno farxinta ay faraxsan yihiin macallimiintii iyo ardadiiba. ani waa liigu casuumay anigoo wali wakiil ka ahaa mudanaha laga soo doortay muxuu ahaa warka galbeed mudan Cabdirasaaq Ismaaciil oo ku magacdheer iyay oo ku maqnaa safar Nairobi ayaa wuxuu i wakiishay inaan meesha ka qayb galo aan bedelkiisa meesha ka hadlo ummadda u mahadceliyo dhalinyarta u hambaliyeeyo culimada u mahadceliyo wixii ka dhacay maanta meesha wax aad u qiimo badan u ahaa laguna la isku afgartay in dawladda county-ga aan bal wax allaala wixii caawinaad ay siin karto jaamacadaha islaamiga ay siiso arrintaasoo annagana dhahan inaan gafanaha u gudbino wasaaradda qorsheynta qaranka ninka socdaa joogay wasiirka dhulka ninka joogaa guest of honor ka ahaa niman kala joogeen kuwa ka shaqeeyeen wasaaradda lacagta joogeen annagoo mudaneen dhowr nabaan joognay arrinta marka arrin muhiim bay ahayd. waxaa ka soo qayb galay culimo muctaraf oo Gaaris iyo ninka aan mar labaad hadalkiisa ku celinayo oo la dhaho Abu Muscab khair Allah siiyo. maamulaha jaamacadda mustaqbal Masta Ali Tawane ayaa waxa uu isna faahfaahin ka bixiyay tirada ardayda ka qalin jabisay jaamacadda. maanta meeshan waxaan isku imaanay qalin jabinta ma aragtay ardada 42 arday baa maanta jaamacadda ayaa ka qalin jabisay. runtii dad fara badan baa ka soo qayb galeen nin walaalkeena oo Sacuudiyaan ah oo ka imaaday Madiina Munawwara baa nala soo qayb galay xafladan oo magaciisa la yiraahdo Ubayd Ayaad Al-Awfi Abu Mash'al baa loo magac daraa 45 arday oo ardada ma aragtay jaamacadda dhigtaan ayuu lacagta ka bixiyaa. ardayga wuxuu ka bixiyaa ma aragtay lacag 50,000 oo baasari ah. runtii waa nin jaamacadda ma aragtay aad u caawiyay. 45 arday 30 ka mid ah hadday qalin jabiyeen oo jaamacadda ay dhameeyeen. runtii waxaan leenahay ninkaas walaalkeena ah jazaakallahu khair ilaahay subhanahu wa ta'ala ma aragtay wixii jaamacadda aad la qabatay iyo ardadaas ma aragtay masaakiinta ah oo jaamacadda aad ka bixisay ilaahay ma aragtay ajir ha ka siiyaan leenahay. runtii maanta waxaan rabaa inaan ma aragtay aan u mahadnaqo waxaa meesha nagala soo qayb galay wasiirka ma aragtay wadooyinka iyo isgaarsiinta ayaa ma aragtay nagala soo qayb galay. marka runtii waa xaflad aad u farxad leh. ardadeena maanta ma aragtay 4 sano jaamacadda soo wadeen baa maanta qalin jabiyeen. waxaa marka ugu baaqaya dhalinyarada kale oo hadda ka baxeen dugsiga sare madaarista inay ma aragtay jaamacadda ay soo helaan walaalahoodaas ma aragtay ay ku da'daan baan leeyahay ma aragtay. The power of information, it's here with you. Garissa Times Tube channel brings you updated news as it happens. Whatever you just need, like, is just click the like button, then give us a subscription
at the bell sign. Then from there, the story are gonna be flowing in as we update you day to day.